dulqaad horta markay timaado iyo Soomaali farqi weyn ah u dhaxeeya Soomaali waa ogtahay hilib geel ay cunaan wax dulqaad ay leeyihiin aw yaraatay ma jiraan ma dhihi kartid Soomaali waa dad aad iyo aad u dulqaad badan oo u sabar badan waay oo alla yaqaano Ilaahay ka cabsanayo waay Yurub ee meelahan markii dadka joogaan ay leeyihiin Soomaali dad dulqaad badan ma ahan Soomaali dad oo sabarka ku yar waaye Soomaali dad isfiirtooliyaal waaye ay dhahayaan laakiinse ani ahaantayda Soomaali dhinac uma bixin Soomaali waxaan ku aqaanaa inay dad dulqaad badan ay tahay oo sabar badan Soomaalida dad muslim ah yeeshee dulqaadka aad baa loogu fiican yahay annaga hadda magaaladan aan joognaa Muqdisho ah bulshadu waxay dareemaysaa wax yar ayay iskugu dulqaadan karin Soomaaliya dulqaadkeedu waa yar yahay mid kale Soomaaliya horta ay bajaaj wada Soomaaliya la wada waxaad arkay dad bajaaj ay ku yiri igu qaad oo kuleeshiisoo kale xaafada Soomaaliya kamid ah xaafada kamid ah kuleeshiisay markaas waxaan arkay wax yar oo adiga intay cunug saqiir u gurguuro kale waxaad arkay oo bacaad oo kale markaas waxaad leedahay intaas yariiska saaxiib iga caawiyo kale ama intaan adigu ka baxo kale aniga intaan bacaadka ma geli kariyo kale markaas ay ku leeyahay adoon meeshaas geeyay lacagtaadi waa ka ebriba ka taaw hadii kale aad inaad geeysaa qasab kugu eego waa wax ku muuqdo oo xaafadayda tan tahay fahanti marka taas waxaan leeyahay dulqaadkeedu aad u yeeyaa leena Soomaali fahanti ani horta dulqaadkeedu aad u yeeyaa ma fahanti waxaan ku soo koray caano geel iyo hilibkaas geel aasigeys dulqaadkeedu aad u yeeyaa wallahi dadkaas baranka lagu sameeyay horta markii qaad dad isla og iyo dad isla ogeen labadaba yihiin laakiin dadka aan isla ogeen minood aragti ma aragti waa aragti markii qofka baranka lagu sameeyo asigoo dulqaadkiisu hadda calikeeyo kala yar daawanaya ma fahanti xal daawanaya baabaji iyo waxa ku sameeyay intaqaana baranka waxa arkay indhihiisa waxa laga dareemayo shuurta ka socda qalbigayga ay u jeedino dhaman fahanti laakiin wuxuu dhahay macnaha wajiga u jeedino laakiin qulubta waxa iga jiro cuqdada waayaabay soo dhaman fahanti marka waxa Soomaalida inay dulqaad barteed xataa leen dadka ay ka filinayso dadka ay dulqaad diino caankaas leedahay xataa dulqaad oo ka dhumaado saaxiib fahanti assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magaca waa Cabdiraxmaan Aamin jooga magaalada Xamar alxamdulillah horta aniga waxaan ahay wiil Soomaaliyeed khaasatan horta aniga waxaan ku soo karay dhanka Kenya ahaan dalashadeyda laakiin hadda sanadihii u dambeeyay waxaan joogaa magaalada Muqdisho runtii dadka Soomaalida waa dad aad u wanaagsan oo diiniyan akhlaaqiyan dhan walba aad iyo aad uga fiican sababta waxaa ku yeelay Soomaali meel walba waddan walba hadda joogto aad tagto way joogaan meel walba ay ku nool yihiin waxa yeelaya waa dad firfircoon waa dad shaqo walba diyaar u ah hatta khaasatan magaalada dhahay Kenya khaasatan Nairobi maanta businesska ganacsiga u badan waxa haysta gacanta ku hay Soomaali waay maasha Allah arrin aad looga farxo khaas South Africa tag ganacsida u weyn maanta wadamada koow iyo laba dhahay qof saddexaad maanta qofka waa nin Soomaali waay heerka waxay ku gaareen tay ku gaareen waa dadaal iyo fikir isku darsadeen marka maasha Allah hadda maanta Soomaaliya khaasatan Muqdisho waa meel nabad ah inkastoo xoolo iska dhacay dhibaato iska birin laakiin waa meel nabad ah oo dadka shaqaysanayaan hore shaqada ka sii galayaan haddii maanta dhibaato ay ku dhacdo way ka sii istaagayaan hadda shalay sooba laba bil ka hore way burbursaneed maanta haddaad tagtid way dhammaystiran tahay meel walba way camiran tahay waxay yeelay dadka wada shaqay wax walba diyaar u ah wallahi saaxiib markaan runta ka hadlo horta Soomaaliya wax ka dulqaad badan Afrika ma jirtaa misanad dulqaadkeeda aad u fiican ma fahmino boqolkiiba 98 waa dad aad iyo aad u dulqaad badan ma fahamtay taasna waxa ku wasgareynayso waxa waayo 91 ilaa 90 ilaa iyo up to now laga joogo waxa waaye Soomaali wadankoodii wisdooda u joogaan markii laga raabo in yaro qurbaha u qaxday ma fahamtay inta kale Soomaaliya joogaan ma fahamtay marka taasna tooba saaxiib Soomaali aad iyo dulqaad badan tahay maadaama ay dad gobayiin oo naxariis badan maxaa kale maxaa ku jira marka wallahi waxaan ku iri waxaan ani ayaga aan ka arki lahaa Soomaali meel walba joogaan waqooyi ilaa galbeed ilaa koonfur dad naxariis badan waay oona aad iyo dulqaad badan waxaa arkaysaa matalan cid Soomaali adoo meel iska joog matalan anta ka tagtay hadda ka horaan qasiic ugu dhacda ku sheega hadda ka horaan Muqdisho anta ka tagaa waxaan tagay anoo meelan aqoonin ka ayaan tagan faat ilaa Boosaaso dhulkaas mana isnaqaana reer koonfur waxa kalena iyo reer bari saas ay taan wali soo dhaway wali dulqaatan oo waxba waxaan aan loogeen waa adiga
9 ilaa 10 mbant waa lii soo dhaweeyey maasha Allah si kale ilaa baa lii soo dhaweeyey malii xumeen marka waa ku mooday in badan insha Allah maasha Allah marka Soomaali ani wax la inay dulqaad aan ilaa badi dulqaad way tahay waxa Soomaaliya kuma laakiin waxaan ku doortay inay Soomaali ay yihiin dad aad iyo aad u dulqaad badan kaabo bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa mahad iska leh soo wanaagsan aad iyo aad alxamdulillaah alshukru rabbil caalamiin dadkeena iyo dalkeena iyo dadkeenaba aad iyo aad u mahadsanyihiin dad aad iyo aad u dulqaad badan waaye dad jecel laakiin markay qurbaha joogaan wadamaha kale ay joogaan aad iyo aad ay isku aruuriyaan laakiin markay dalkooda joogaan waxa ku abuurmayaan ka suwaayba ilaahayna ka dulqaaday ma fahantaade alxamdulillaah dad aad iyo aad isjecelna waa markay wadamaha qurbaha joogaan laakiin markay dalkooda joogaan wax ku shubayaanba ka salaanahay marka alxamdulillaah ilaahayna waxaan ka baryaynaa nabad caadil ah inuu ilaahayna siiyo dad walaalo muslimaan nahay oo iswada dhashay oo wada dhalay marka ilaahay idinkiisa idinkaan aan ahaynin wax waliba oo ilaahay yiraahdo ilaahan ka sugaynaa ilaahana wax waliba ka sugi karnaa qofaan fiirinayna male qofaan eedeynayna male dalkeena hanoo xumaado hanoo samaado waa iska sabraynaa waa iska dulqaadaynaa maalintaas ilaahay yiraahdo khayrka waa dhanbal maaleel alxamdulillaah laakiin dhibka leh ka batay qof dhib hayo wax wali waa suubiyaa nin baahan wax israba suubiyaa nin dhirga wax ma suubiyaa alxamdulillaah ilaahayna wixii kale oo jirana ilaahay idinkiisa waa ku sugaynaa ilaahay waddankan khayr la soo dhamaa qaala allahi qaala rasuulullaahi ilaahay ka cabsada dad muslimaad yihiin waxa isku haysteen haday wax yar ay yihiin wax la xali karo waay laakiin meel dhiig daatay xalis ma gala mugtaada dhiig daatay ma la xali karo laakiin micnaha haday wax muhiim oo yariis leh oo yahay waa la xali karaa dad walaalo muslimaa leeyahay qofka hadaa ilaahay ku xirtid oo ilaahay wadadiis tustisaan isaan ilaahay ka baq aad tiraadid dadka isku mid ma aha qofna inuu ilaahay ka cabsado haraa dhici karto oo kugu raaco qofna waxaas dhanba ma fiiriyo ilma adeertiisa oo fiiriyaa ama kale saddexdan inta meelaha u joogto fiiriyaa mooye wax kale ma fiiriyo waa dhici kartaa laasin fi shay baduunik waa dhici kartaa waxa sheegus laakiin waxa dhici karto macnaha qofkan hadduu si wax waliba aan dhinac marno aniga haddaan karoonahay ama aqligay aan ka qabo oo nin dulqaad badan ahay waa dhiha walaalow ilaahay ka baq aniga waa ka cabsooday ilaahay dartiisa aan kaaga cabsooday falliga ilaahay uu dhaaf inaan dhaha dhicayso ilaahay falligiisa wax kabee ma jiro أنا إلهي فلقيسي ودافع أنا إن كستو أسيق غلطك أنا سيقو أولياء أن أوجي وأنا إيجيستي لكن وحن أوضل الغد بديا إن أنقص صبره حديث أن صبره. لكن هذا الكأشكتي سومالي مو بنتا. مايا بقول كيف بقول مو بدنا. حتى لو كل يسامر. ده وقت كستو. وكمت دجال هنأخذه هدور ربع الله نأخذه واحد ولا بأكون سوقاته أما ألقون سوق حسته هذا واحد كرو. مركب هذا كان مركب إلى عملية كنا سومالي دقات كوكونيا. ما دي كرتت Soomaali waa dad aad iyo aad u dulqaad badan oo u sabar badan waay oo alla yaqaano ilaahay ka cabsanayo waa walaalkii magacaygu waa Maxamed Ismaaciil Cabdullaahi dulqaad horta markay timaado iyo Soomaali farqi weyn oo dhaxay Soomaali waa ogtahay hilib geel ee cunaan wax dulqaad ay leeyihiin aw yaraatay ma jiraan markay timaado inaa wax kaftana ama fuduul yar oo ku sameynaya aad tiraahdo waxay ku falcelinayaan qaab dagaal ahaan ayagoo adigana aad fiirinaysid inaad iskala kaftantid ama aad tiraahdid qofkan bal heerkuu gaarsiisan yahay dulqaadkiisa fartijaabi ama qiimey qofkaas aad qiimeynaysid wuxuu kugu jawaabayaa qaab dagaal ahaan waa uu kula dagaalamaya horta askariga adigoo iska socdo oo shaqo raadinayo yaa wax qaada aduu ku jiro uu kuu imaanaa niyow sii dhaweeyuu ku leeyahay waa iska sii dhaweynay inta dhaxay sii maraysid telefoon u soo dhacay wuxuu la leeyahay meeshaas ilmow wuxuu ku leeyahay niyo halkaas igee marka adiga niyadaada waxa ka dhaadhicinaysaa inuu lacag ku siinaayo meeshaas ageenays meeshii markii la tagana wax lacag uu ku siinaa mala iska sii dhaqaaqa adiga markii seerinka leefeer ku dhufanaysaa sababtoo ah gacantaada ma gaarsiin kartid asaga marka dhibaatada ugu weyn qalbigaaga baa gaarsiinaysaa waa isciil kaamine laakiin wax dulqaad oo habal yaraah ma jirays bismillaah magacaygu waa cabdiraxmaan mudey maxamed waa mahadsantahay walaal Soomaalidu waa dad qowmiyad ah dad fac weyn oo taariikh badan leh adduunyadana qof qolo walba wax bay caan ku tahay
soomaalidu waxyaabo badan ay ku faantaa jiro markii loo yimaado su'aasha ay weydiisay ee ah dulqaadka soomaalidu xaqiiqdii soomaalida dad muslim ah had yeeshee dulqaadka aad baa loogu fiican yahay annaga hadda magaaladan aan joognaa muqdisho ah bulshadu waxaad dareemaysaa wax yar ayay iskugu dulqaadan karin waxaa kaloo maanta laga arki karaa soomaalidu dulqaadkeeda halkuu gaarsiisan yahay colaadihii waddanka soo maray ma gaarsiisneen wax ay ku diriraan ummad walaalo ah isku diin ah waxay ku diriraan maysan gaarsiisneen intaas marka waxaad dhihi kartaa waxay ku dhacday dulqaad yarida soomaalidu maxaa yeelay qofka walaalkii hadduu u dulqaadanaayo isma soo gaarayaan raalli ahaw ayaa ku filnaan karta saas darteed aad buu u hooseeyaa dulqaadka soomaalidu dadka dibadda tagana si aadaa looga sheekeeyaahoo heer waxaa la gaaray la yidhahdo soomaalidu afkeeda xataa codsi kuma jire waa caro saas darteed dulqaadka aad buu u liitaan diinteen waxayna amraysaa inaan dulqaadanno xaqiiqdii waxaa lagu gaaraa wax badan wax kaa maqanna waa lagu helaa wax hadda haysatana waa ilaahay wuu ku sugaa ha yeeshee soomaalidu dhaqankiyaa naga maqan marka dulqaadka aad buu noogu yar yahay taas waxay keentay inaan maalin walba dirirno biyo ilaahay dhulka ka keenay weel ilaahay noo geliyo ceel noo geliyey inaan ka wada cabna awoodi waayn marka waa iska caddahay in dulqaad yarida soomaalida ay sabab u tahay taa bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdullaahi rooble axmed waana dhowahay alxamdulilah soomaali waa dulqaad badan tahay dhaqankeedu waa dhaqan fiican dulqaadkeedu waa dulqaad fiican laakiin adduunkan yurub iyo meelahan markii dadka joogaan ay leeyihiin soomaali dad dulqaad badan ma ahan soomaali dad oo sabarka ku yar waaye soomaali dad isfiiritooliyaal waaye ay dhahayaan laakiinse ani ahaantayda soomaali dhinac uguma bixin soomaali waxaan ku aqaanaa inay dad dulqaad badan ay tahay oo sabar badan soomaalida horta kuwa dad qaar suwanfeed shan safarood ilaahay ma wada siinin soomaalida kuwa dabeecad leh iyo kuwa dabeecad leh kuwa xanaaq badan kuwa xanaaq oo iska yar iyo kuwa waxaa arkaya ayagan oo dulqaadkooda oo nadiif yihiin oo habiiska yihiin laakiin kuwa qaar waxaa arkaya sida hadda ninka kale hadda ku ag taagnaay wax yargeys u baxadhaado taalo iyo caayo maxaa meeshaan idin keenay qaraaca idin keenay marka saaxiib soomaalidan maaragtay in dowladda xataa iyada xataa dulqaadkeeda inay muujisaa lagaa rabaa ma fahmino marka atul ana xamar misdhahay dulqaad way leedahay feet xamar waxaa waa sii joog ma leh kasii tag laa fahmino xamar nabad ma taalo walaa saaxiib macaan dhulkaaga waa inuu taa laakiin nabadna nooma taalo xamar niyahow aniga se ila muuqato soomaalida dhanka dulqaadka waxaan isleeyahay soomaalida dad aad u dulqaad yar waaye soomaalida waxay u dulqaadataa waxyaalaha waaweyn dhibaatooyin waaweyn dalka uu ka dhaco caadi waaye waa laga baxaa iska leeyihin laakiin waxyaala yaryar oo kale sida hadda aniga waxaan wadaa bajaajtaan oo kale waxaan arkay bajaajleyda ama dadka gawaarida wadoo kale markii meel yaroo jaama uu yimaado qofka seedkiisa inuu ku taagnaado si ay waddada u kala furato uma dulqaadan karo inuu qofka uu seedkiisa uu taagnaado uma dulqaadan karo uu ka baxaa seedkiisa seed qalad uu galaa haddii qof wax yaroo ku xanaaqa ama wax yaroo canaana uu qof yidhaahdo wuxuu isku dayaa inuu u jawaabo uu la caytamo oo la dagaalamo haddaad tiraahdo warniya waxaan waa qalad sidaa u socoto sax maahan haddaad tiraahdo adig ma iskale waddadaana ku leeyahay uu kula caytama uu kula dagaalaa marka soomaalida dhanka waxyaalaha yaryar aad ay ugu dulqaad yar yihiin laakiin dhibaatooyinka waaweyn dilka iyo musiibooyinka waxyaalaha noocaas oo kale markay dhacaan soomaalida dad aad u dulqaadato oo iska iloobay u badan yihiin laakiin qofka wax yar dhibaato yar haddii agtiisa ka dhacdo mirfo iska leeyahay hore ka xanaaqa marka waa dad aad u dulqaad yar bajaajleydana horta bajaajley haddaad tahay saadaba ani bajaajley markaan ka hadlo oo dadka kale aan ka soo tago xaalkooda markaad tahay bajaajley haddaad tahay waa inaad noqotaa qof aad u dulqaad badan sababtoo ah waxaa ku imaanaysaa waddadii oo xiran kala wareegaa lagu leeyahay waddada waa xiran tahay adigoo koorso wada waxaa wadda laga yaabaa in iska $1 yihiin waddada ay kugu xiranto kala wareeg lagu dhaho askariga si qalada inta kuu joojiyo uu ku leeyahay iqaad lacag ku sii maayo laga yaabaa inaad xoog kugu raaco waxaasoo dhan waa iskaga dulqaadanaysaa waddadiyaa jaam kugu noqonayso waa inaad iskaga dulqaadato marka bajaajla haddaad tahay dulqaadkaaga waa inuu zaad u bataa gaari tignikaa kugu imaanayo waddada kugu furanaa xabaduu kugu furaa asagoo waddada inuu furto uu rabo xabaddaas hadday rabto waa iskaga kaa dhece waa ku dhimanaya haddaa rabta ku dhaawacmay haddaa rabta gaarigaaga ama mootada ama wataa ku jajabayso marka waxaasoo dhan inaad iskaga dulqaadato waay bajaajley haddaad tahay qof aad u dulqaad badan inaad noqoto waaye bajaajtana dhallinyaro badanaa waddo oo qaar laga yaabo inay waxyaala daraagasa isticmaalaan
qaar iska dabeecad xun dhib kaliya guryaha lagu heey waayo oo waalidkooda bajaaj ku soo gaday oo la yiri hooy ama waa tahriya ama bajaaj iga gad kaasoo kale laami kula saaran waxa uu kugu soo binaa sadka qaladka kugu soo galaayo waxaasna inaad iskaga dulqaadato waaye